نلشتني وكديد هدف الحياة هدانت فهمنا أدو دالن بدقوت كجلسة أما مدحوين النقا أما تاجر نقا أما بليونير نقا أدو دالن بالله مرو ير لقا قطوطوبة يا وحكا الراعي يعني جرين وحلا لي وحدو دا شيء وحبكا الراعي مايا مدحوين أنا هاجري اللعق بالله هاجري هبل بالله markay marada kugu duubayaan bay meydku bixinaya hatta magacaaga hilmaanaya dib loo oran maayo madaxweynaha xabaash si fiican u dhiga ama taajirka xabaash si wanaagsan u dhiga ama uu hebel xabaash si wanaagsan cid ku oran mayso meydka iyadoo lagu leeyahay uba lagu sii wadaya indhuhu dhalanteed bay arkaan aqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwoodka aad moodo in biyo fadhiyaan ishu marka ay ka fog tahay waa biyo isleedahay laakiin hadduu caqligu si fiican u shaqaynayo waad garanaysaa inaanay biyo ahayn meesha cadceed hayso haddaad si caqliga seexiso aad tiraa war bal ka wardoon waa intaasoo biyo noqotaay caqli haddaad tiraa war seexo war bal meesha ka wardoon waa intaasoo biyo noqotaay markaad timaado maxay soo baxaysaa dhalanteed هميغا نفتيد دنيدا كسابسان oo dhamina waa nooca wax kasta markuu ka maqan yahay buu ku yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho baan wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gamaa soo maaha alla seexda haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo oo buulka laguma gamo daartana waa lagu gamaa waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa in Soomaaliyeed baa wax laga sheegay hurdaan macaanayna ma seexan cunaan macaanayna ma cunin weedhacaynkaas laga sheegay saddex mas'alo hurdaan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan baa seexda markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida waad burburaysaa cunadana waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi cunaa aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan baan cunaa buu leeyahay gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya dib wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha hela wax ka macaani ma jirin saxiixa maaha ama yaroo garowa hela garowga candhuftaada iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sidaa maalin walba kaad heshaaba kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan ba kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu isbedeli lahayd hada meel cidla fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbedel ma leh sida awgeed noloshu waxaan TV-yada laga akhrinayo iyo warkan yaan leedin mashquulin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga oo isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqada hada sheegayaan tusaamo weydin statistics-ka dunida dadka naftooda dila waxa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaami Afrika kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu naftas ka qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga haday baraartay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way cuntami weyd dabeetana ka taga way siraadeen mala xaga kala aba warjiraay idan ayuha alhibba ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isaga abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha Alle inoogu soo dhiib rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno
qof bini aadam oo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno dii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طمأنينة القلب qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan